xisbiga talada dalka haya ee kulmiye oo ay maanta ku beegneed ololihiisii doorashooyinka isku sidkan ee wakiilada iyo deegaanka ayaa maanta wacdaro la yaab leh ay muujiyeen kumanaan ka mid ah taageerayaasha xisbiga kulmiye ee degmada Ceelaf Weyn ee gobolka Sanaag waxaana socod lug ah ku soo mareen shaariicada waaweyn ee magaalada Ceelaf Weyn ugu dambeyntiina waxay kumanaankan taageerayaasha ah isugu soo biyashubteen goobtii loo asteeyay oo ahayd khayriyada bartamaha magaalada Ceelaf Weyn waxaana u dhacday sida tan xisbiga kulmiye waa xisbigii horumarka waa xisbigii dhalay laba madaxweyne waa xisbiga rajaynaya inuu madaxweyne saddexaadna uu dhalo baarlamaan aad iyo aad ayaan idinku mahadcelinayaa dadka xildhibaanadaan idiin soo xullay waa labeentii dadka hadday noqoto golo baarlamaan iyo golo deegaanba ballanteennana waxaynu odhanaynaa maalinta 31 May inaynu codkeenna ugu hagar baxno insha Allah guul baan u rajaynayaa aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa xisbiga kulmiyana mid baan u sheegayaa waxa jirta imika labadan xildhibaan isku lamaan dad baa khaladaad kale ka fahansan kulmiya waa kulmiye ucudna waa ucud wadanina waa wadani xiniya la isma dhibaadiyo haddii qof kulmiye ahow aad u hanqaltaagto qof xisbiyada kale ka sharaxan dee cididaaba caloo ku jabto xildhibaankaaga wadatay baad riday waa inaa ogaataan in kulmiyana kulmiye yahay wadani tahay ucudna ucud tahay mid waliba taageer u leeyahay yay idinka qaldamin insha Allah bilmillaahi kariim sidii lagu yaqaanay xisbiga kulmiye wuu guulaysanayaa waad ogtihiin xisbiga kulmiye miisaanka uu deegaamadan Ceelaf Weyn iyo garada ku leeyahay waa xisbiga kaliya ee ku suntan gobolka Sanaag wixii laynooga bartay xuduudii laynooga bartay iyo taageeradii laynooga bartay ayaa laynaga rabaa marka ugu horeysa waxaan halkan ka hambaliyeynayaa taageerayaasha xisbiga kulmiye iyo musharaxiinta xisbiga kulmiye ee maanta sida daadka u soo rogmaday degmada Ceelaf Weyn iyada oo shalayto daruurta ina dul joogtaa aanay ina dul joogin oo ay maantana weliba hadhaysan yihiin waxaan kale oo halkan uga dardaarmayaa dhammaan asxaabta oo dhan marka hore in ay ilaaliyaan nabadgelyada in ay ka mid ahaadaan dadka danta Ceelaf Weyn dhammaantood u tartamaya ayay yihiin marka meesha ay u tartamayeen nabadgelyadeena waa waajib in la ilaaliyo annaguna waxaanu idinla ilaalin doonaa tartankiina weliba xisbiga kulmiye tartankiisa waxaan leenahay xisbiga kulmiye wuu guulaysanayaa way ka muuqataa loo dardaar werin maayo weliba waxaan jeclahay in ay soo bixi doonaan xisbiga kulmiye musharaxiintiisa golaha deegaanku marka xigta waxaa dee muuqata in maanta kulmiye uu horseeday horumarka iyo guusha ka muuqata degmada Ceelaf Weyn maantana ay isugu soo baxeen inay taageeradooda muujiyaan kulmiye horta waxaan doonayaa inaan iftiimiyo waxaan soo marray deegaan badan oo ay ugu hooseyso xisbiga kulmiye ay ku kulmeen saaka dhammaantiin waxaan idinku soo dhawaynayaa isu soo baxan aadna bulshada tan haweenka dhalinyarada cuqaasha dhammaantiin bulshada halkan isugu timi aad iyo aad baan idin salaamaya waxaan intaa uga gudbayaa waxaan kaloo halkan ku soo dhawaynayaa xildhibaanada golaha wakiilada oo ay halkan ku metelayaan inta maqanna saalax maxamed diiriye iyo xildhibaan saalax shira faarax idinkana waxaan idin leeyahay ku soo dhawaada idinkoo inta maqanna ku metelaya ku soo dhawaada noloshan iyo taageerayaasheenna ku soo dhawaada intaa waxaan xisbiga kulmiye ha guulaysto waxaan kaloo leeyahay waxaa tihiin xisbigii dawliga ahaa
وحتين حسبك دبي كعلى بس الحسبية وحن لا يهي حسبي لوجا شيء دلغاتك يهدي بإيدك كذا لي هاي دشنت عياتهين حسبية كلا إن لا ترتضيع يقولون هو إنجيون وحن لنا كوجد البدن أهالا وحن كلنا هاي حسبية صباحا يهدي بحسبية كصباحا أهالا تدوينا وحن لنا هدي إنه حسبك صوت دارنا هدي إنه حسبك هلك صوت تاجدي هدي إنه لنا هاي حسبك إنه دارنا إنه صبحه سيها قر لعانا أنا تاجر سلام كدب وحل كلون وقت قروا كلون هاي وحاول صباح تاجر هذا مشرحين تينا horta laba qodob baan oranayaa waxa weeye marka hore ammaanka iyo nabadgelyada ilaalino ammaanku inaga ku nool isagoo inaguma nool horta ilaalino taxiisa waxa weeye xisbigan musharax kasta wuxuu idin ka rabaa codkiisa inaad cod siisaan codka inaad ugu helisaan bid ka doonaya مثلا annaka hadda waxaan wadnaa مثلا golaha baarlamaanka dala shira faarax ayaan wadnaa oo halkan fadhida way ogtihiin waxa faraha badan ee ay u qabatay magaalada ilaa masaajidada ilaa meelo walba ay u qabatay marka dala shira faarax waxa ku soo dhaweynaa degmada Ceelafweyn degmadeedii ayaan aad iyo aad ugu soo dhaweynaa marka hore waxaan kaloo idin sheegayaa way soo martay deegaamada oo dhan heerka ay ka soo jeedo ee baho way taageersan yihiin dhammaantood in yar mooyaan aad iyo aad bay taageersan yihiin taasina waa guul ilaahay loogu mahadnaqo guddi waxa weeye markaa golaha wakiilada golaha deegaanka waanu idin ducaynaynaa guul baanu idinku ducaynaynaa ilaahay ha idinku guuleeyo badbaado iyo nabadgelyana sidaa ilaahay ha inoogu rido intaas weeye baan kaga baxayaa iska madax xisbi xaakimka waxa hubaan inuu dhacaynin inuu gobolka xildhibaanada ugu badan ama ugu awood badan waxaan taageersanahay xildhibaanada ka sharaxan degmada Ceelafweyn hoof gobolka region Sanaag xildhibaanada ka sharaxan waa xildhibaan wada top ah ama sare wada golaha deegaanka waa xildhibaan soo xulay cilmiga aqoon lagu soo xulay وحلمان سان هو صوّا بحياة حلمان هذا لما أنتوا حلود عليه إلى هاي ارتبوش نصير سكرة دقيقة أظن دقيقة عيل في اللي سرقين في حكومته لا تدكتورين كذا ودقيقة حساسية عواصف ويصمرن إلى هاي سنة مثلا نقوله دور الشهر نقول على سنة بدقليات بعد فضل عضيان runtii aadka loo soo agaasimay sidii lagu yaqaanay xisbiga kulmiye ha noolaado kulmiye ha guulaysto awalba waa guulaysanay waxaan filayaa waa madaxweyne labaad ee xisbiga kulmiye ee talada haya ka saddexaad iyo ka afraadna insha allah waa innaga xildhibaanadii hadda anigu aan ka mid ahaa ee yuusuf ku jiray khadar ka mid ahaa mar labaad ku soo celiyey waxaan nahay 8 ugu dambeyntiina waxaa halkaasi ka hadlay labada musharax ee golaha wakiilada gobolka Sanaag iyo waliba maareeyaha madbacadda qaranka waxaan ku faani doonaa awoodda dumarka iyo awoodda dhalinyarada ku faani doonaa anigoo garbihiinniya garbahan ku duulayaana waa kuwiina waa kuwa dumarka Ceelafweyn meel kasta xusbiga doonana ahaado anigu dumarka Ceelafweyn baan matalaya iyo gobolka Sanaag iyo dhalinyarada ayaan matalaya guri kastana waxaan ka rabaa in cod layga siiyo way hadba way balan qaadaysaa codka inay siisaa iyaga laftigoodu dhalinyarada ragga ka mid tahay nimanka cuslaaday oo dhanna waxaan jecelahay inay codkay siiyaan waxa weeyaan nin waloo gobolka Sanaaga ama degmada Ceelafweyn inta xukuntaa waxaan ku leeyahay cod dumar baa waxay ku khudbadeeyeen dalays dhibaat bay dooni hadda codkuma dhibaata waa galaa taguna haddii aanu ku guulaysano xilka aanu doonayno insha Allah taala waxaanu laba laabi doonaa dadaalka sidii aanu baahihiina iyo duruufaha deegaanka aanu u bandhigi lahayn iyagoo xoogaal dawladdu ka madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland isagoo xoogaal ka ah haddana xusuusinteeda iyo dabagalkeeda ayaanu ku sii dadaali doonaa insha Allah ka koowaad waa in dhammaan la codeeya oo aan 20 iyo jarjarka kura inoo yaalla aanay baaqan waa in buur iyo bannaan bal la maraayo la codeeyo dadka la gaara mar labaad waxa muhiima
inaan si xun loo ficiltimino sanaaduuqda aan la xidhin way dhacdaa sanduuqyo dushooda lagu dagaalamo oo lagu hirdamo oo la xidho bal ninkii sanduuqa xidhaya haddii laga codbato uu ku cadhoonaya ma idinla saxsan yahay Axmed Mursal Askari Star TV Ceelaf Weyn.